barasabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabyatire iyo isduwayaasha wasaaradaha dawladda oo maanta iskugu yimid shirkoodii toddobaadlaha ahaa ayaa waxay ku lafagurayeen guddiyo ka kooban isduwayaal loo sameeyay la dagaalanka maandooriyaha iyo dardargelinta hay'adaha sidoo kalena si wada jir u soo dhaweeyay heshiiska DP World iyo xukuumadda Soomaaliland wada saxeexdeen go'aan qaadashada adag ee uu qaatay mashruucan Soomaaliland wuxuu taraya oo xagga maalka iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga shaqada sababtoo ah shaqalaan baahsan bayna haysa ardaydeena jaamacaday ka soo baxday waxaan u maleynayaa maanta wixii ka dambeeya in qof oranaya shaqalaan bay haysa aanay jirin inaga lafteena shaqaynayna aynu halka shaqo u doonanayno waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa heshiiskii Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World ay wada galeen waxaan leenahay waa heshiis mudan in la soo dhaweeyo وهشيس وحطريا ذلك يدك وهشيس وحطريا ومدة محوها كنول جمهورية الصومالية بلوجي اعتراف كنا وطنك جمهورية الصومالية طلبنا أيتهاي كوبي دقالهنا أنو أرجنو آدية آد بانوجو همبلييننا وحنو آدية آد همبليو يبغادين وجوسو تشيديننا مدحوينها جمهورية الصومالية مدن أحمد محمد محمود آدن وهرمود bilowgay heshiiskaas aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay shacbiga Soomaaliland waxa leenahay dhamaanteen bayna ku faraxsan aan soo dhaweyno waxaanu aad ugu hambalyeynaa madaxweynaha qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa weeye waxtar iyo ma garanaysaa horumar qaran oo aan hore u soo marin intii ay jirtay xukuumadda Soomaaliland waa heshiis aan ka dhicin laakiin isagu ugu guuleystay isagoo danaynaya danta qaranka iyo ummadda uu mas'uulka ka yahay ugu dambeyntiina barasabka gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay qodobada kulankan lagu lafagurayay si balaadhana u soo dhaweeyay heshiiska DP World iyo xukuumadda Soomaaliland wada galeen muhiimsana guddiyo leenay marka guddida ugu horeysa waxay noo soo diyaariyeen guddidii dabagalka ama dabargoynta maandooriyaha sida ka warhaysan baxablayaasha bariyaha ugu badan hadda gobolka Togdheer waxaan ugu xogaa muqaadaradan oo hore u lahaan jirin ayaan ugu batay guddi baan u saarnay guddidaas 5 xubnood bay ka kooban yihiin 5 xubnood waxay soo diyaariyeen in ay dabagal ku sameeyaan marka talana wayna soo siiyeen qoraalkoodii tilmaana wayna siiyeen in 6 goobood oo kamid ah degmada Burco inay dhalinyarada waliba aad u yar oo 10 jirku ugu yariyay ilaa iyo dhowr 20 jirkuna ugu weeyay inay xabagta ku cab oo qaar aan waalidkooda inay iskuulada ku jiraan inaan degdeg wax ugu qabano gudidii hay'adaha waxa kale oo aan ku soo qaadanay heshiiskan taariikhiga ah oo ah heshiiskii 25 ka sanadood ee dawladda Soomaaliland jirtay waa historical agreement waxa weeyaan waa taariikh runtii kuna suntan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo aad iyo aad ugu mahadnaqaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ogeydeen intaas oo go'aan uu qaatay kamid ahayd kii furista asxaabta kii aad ogeyd darajada waxyaabo fara badan oo adag bayna soo maray uu kaga talaabay go'aan adag iyo garasho dheer iyo waayagnimadiisa waxaan ku hambalyeeyaa xukuumaddan hadda jirta waxay Dubai waxa aan aad ugu hambalyeeyaa midhadhalkiisa oo guul u soo hayto Soomaaliland maha waa heshiis dawlad yar oo curdina oo Afrikada bari ku taala geeska Afrika waliba ku taala oo la ictiraafin heshiiska noocaas $500 billion inay gasho waa taariikh weey خضر عبد الرزاق سليمان خضر هند TV عالمي Somali News مقالة برعو